الحمد لله إلهي عاوة هلكن سوكاي كيني أنه هو دبالدقينا حوسكا شانية طبان كمي أحسن تقولي كسو وريكتي أساسكي أورك دليل الصومالية SYL ولقد جوجو تضباطن يلح سنو كون يسيال بقول أفرتن يسدح دي أي أساسين سدح يتوان دليراه سدح يتوان كاس دليرو وهي هايين دليرو فيشن له أركتدر له صومالي ما في عن وطنيين جيسيين وهي أركايين ويوغايين waxa uu gumaysigu yahay iyo waxa uu sameyn karo gumaysiga dhabta ah oo Afrika iyo meelo badan gumaystay waxay caan ku ahaayeen inay bedelaan dhaqamada dadka ay u tagaan oo ay ka bedelaan dhaqamadooda ay bedelaan caadadooda waxa intaas weheliya luqadahooda haday ku raagaan inay bedelaan luqadaha ummadaas ay leeyihiin waxa intaas dheer maxaan ku yiraahdaa dhaqanka diinta inay bedelaan iyo caadada ay leeyihiin waxay fahamsanaayeen haddii gumaysigaas uu sii joogo muddo dheer oo ay arkaayeen dhibaatada uu geysan karo 50 sano soo socota inay qaateen laba arrimood midkood inay kala doorteen laba arrimood midkood waxay kala doorteen inay aqbalaan oo isdhiibaan oo gunnimadu ay ogolaadaan oo intaan sheegay lagu sameeyo oo la baro in laga sareeyo qabkoodii la dilo oo hoos loo dhigo ay ogolaadaan wax walba ay ogolaadaan iyo inaysan saas yeelin ay ku dhintaan gobonnimo ay ku dhintaan inay ilaashadaan dhaqankooda iyo diintooda iyo caadadooda iyo luqadooda hadday noolaanayaan ay sharaf ku noolaadaan hadday dhintaanna ay sharaf ku dhintaan iyo karaamo taas waxay keentay 17 sano kadib Soomaaliya inay u keenaan xorriyadda maanta aan haysanno oo laga joogo 76 sano hadday qaadan lahaayeen dulinimo waxay ahaan lahayd in Soomaaliya ay mustacmaraad ay ku jirto muddo aad u dheer waxaan noqonay wadamadii ugu horeeyay oo Afrika xorriyadda qaatay marka ay aasaasayeen ururka SYL laba dal oo Afrikaan ah yaa xorriyaddooda qaatay oo kaliya markii Soomaaliya xorriyadda qaadanaysana 8 dal kaliya ka horeeyay Soomaaliya xorriyadda waxay la qaadatay 17 dal iyo la qaadatay taas waxay muujinaysaa inay halgankii taxanaha ahaa ay u soo halgameen ee naftooda u ureen oo dhiigooda u soo daadiyeen oo hantidooda u lumiyeen oo xabsiyo u galeen iyo dhibaatooyin badan inay keentay muddada hadda aan joogno 76 sano inaan noqono ummad xor ah haddaba maxay ku gaareen inay 17 sano gudaheeda gumaysiga mustacmarka ah inuu yiraahdo Soomaaliya waa ku gubtay waa inaan siiyo xorriyaddooda saddex arrimood iyo 10 kaas dhalinyaro oo aragtida dheer lahaa oo geesiinta ah horta Ilaahay waxaan uga baryanaa naxariistiisa jannadiisa inuu Ilaahay siiyo yaan Ilaahay uga baryanaa waxa ay ku guuleysteen inay fahmeen mustacmarka isticmaalku waxa uu adeegsado oo ah qaybi oo xukun
waxa uu ku qeybiyaa ummadda Soomaaliyeed oo ay ahayd qabiil iyo qabyaalad iyo firqooyin diini ah oo dariiqooyin ah. waxay ogaadeen in loo baahan yahay si guushaan loo gaaro muddo yar gudaheeda inay ummadda walaaleeyaan Soomaalida ah, inay ummadda mideeyaan oo ay ka fogeeyaan qabyaaladda iyo dariiqahaas ama qaybahaas kala duwan oo diiniga ah. waxay xoogga saareen inay ummadda aqoontooda iyo wacyigooda kor u qaadaan oo ay baraan waxa la yidhaahdo waddaniyad, inay waddaniyad iyo qaarnimadu ay ka xoog badan tahay qabiil, in qabiil ummaddu aysan meel gaarsiinaynin. waxa ummadda midayn kara oo ummaddu ay ka hodmi kartaa, ay horumar ku gaari kartaa inay tahay qaranimo, inay tahay iyadoo laga fogaado qabyaalad, iyadoo laga fogaado wax alla wixii ummadda qaybinaya, iyadoo ummadda la isku soo dhaweeyo oo la walaaleeyo. taas ayay dalka kaga horeeyeen gumaysiga. haddaba su-aashu waxay tahay 76 sano labadaas khibrad ama experience waa leenahay. waxaan leenahay 47 sano oo formulahoodii ama qaacidadoodii aan ku soo soconnay oo ahayd Soomaaliya in la isugu hayo qarnimadeeda saddexdaas arrimood, in la isugu hayo in ummadda Soomaaliya la walaaleeyo oo la mideeyo, in qabyaaladda iyo wax alla wixii kala fogeyn kara laga fogeeyo, iyo ummadda shacabka wacyigooda la kordhiyo oo kor loo qaado oo waddaniyadii la siiyo. 47 sano laga bilaabo maalintii iyagu ay aasaaseen yay ka bilaabatay ilaa dowladdii dhexe ay ka dhacaysay. kabacdi waxaan galnay formula kalaan galnay oo in la horumariyo qabyaaladda, in firqooyin badan ay soo baxaan, ummaddu aysan isu nixin, wixii walaalaha ay kala fogaadaan, dalkii inuu kala tago. waxaan ku dhammaanay marka qabjab, waxaan ku dhammaanay sharaf xumo, waxaan ku dhammaanay dowlad daciifa, waxaan ku dhammaanay dhaqaale xumo, waxaan ku dhammaanay ummaddeenu inay kala qaxaan, kuwo badan qaxooti ay aadaan, kuwo badan ay qurbo aadaan, kuwa gudaha joogana abaaro iyo dhibaatooyin iyo colaado ay ku habsadaan. taas macnaheedu waxay tahay dhalinyaro hadday ay maqlaysaan waxaan idiin sheegayaa hala qaato SYL 13 dhalinyaro, allah u naxariistee, qaacidadooda hala qaato. haddaad doonaysaan horumar, haddaad doonaysaan sharaf, haddaad doonaysaan dowlad wanaagsan idinkoo taageeraya, waa in aad ku shaqaysaan annagana idinku hogaamino hadduu ilaahay yidhaahdo. dhalinyaro meel kasta aad joogtaan gudaha iyo dibaddaba waxaan idinkula dardaarmayaa inaad taageertaan dowlad kasta oo dalkan timaada, inaad taageertaan oo gacan siisaan, inaad dowladdan hadda jirta gacan siisaan. maxaa yeelay dowladdan hadda jirta markaan ka soo qaado waxa weeye waxay rabtaa dhaqamadii hore inay beddesho oo soo jireenka ahaa, khaasatan 30 sano ugu dambaysay inaan beddelno oo aan ku beddelno dhaqan cusub oo siyaasadeed. ay ugu horeyso wasiiraddu arrintay ka hadashay oo ah doorashooyinka. waxaan ognahay 18 ugu dambaysay doorashooyinka la galayay dalku inuu waqti badan ka lumiyey, inuu dib noo dhigay. saas darteedna loo baahan yahay inaan galno qaab ka duwan, qaabkaasna uu yahay shacabka inaan awood u soo celinno, dhalinyarada awood u soo celinno. meeshii dad yaroo kooban ay wax soo xuli jireen, kadibna lagu cambaarayn jiray wax kastoo dhaca dadkaas kooban. waxaa muhiima marka oo khasab ah inaan mar dambe lagu eedeen dad yar oo kooban. haddii waxa laabaan in lagu eedeeyo guud ahaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo codkiisa dhiiban kara.
oo laga rabo qof kasta inuu codkiisa dhiibto una dhiibto dadku uu isleeyahay ama xisbiguu leeyahay waa wanaagsan yihiin oo dalka waa u roon yihiin ma aha in codadkiina u dhiibataan haddii aan idiin keenna awoodii oo gacantiina aan soo gelinno inaad u codaysaan wixii lagu eedeynayay oo dad yar ay samaynayeen oo qabyaalad ama qabiil iyo wax la mid ah waxaa la rabaa markii awoodda gacantiina soo gasho oo hadda aan ka hadleyno sharcigii doorashooyinka ee hor yaalaan baarlamaanka ee hor yaalaan in awooddaas aad leedahay haddii aad ku takrifasho dhalinyaro iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaad ogaataan qofka aad doorataan haddaw inaydan ku eedeyn karin muxuu qabiil u noqday maxaa yeelay adigaa qabiil ku doortay qof aday kaa bilaabanaysaa wax wanaagsan aday kaa bilaabanaysaa haddaad xisbi ku doorato iyo hoggaanka xisbiga aqoontiisa kartidiisa daacadnimadiisa wanaaggiisa wadannimadiisa aad ku doorato macnaheedu waxa weeye qofkaasi waa qof u dhexeeya ah ummadda soomaaliyeed waa qof mathali kara ama astaan qaran u ah marnaba aan qabiil iyo qabyaalad aadaynin marna aan ammaanada ummadda soomaaliyeed aan ku takrifalaynin markaas macnaheedu waxay tahay waxaa imaanaysa dowlad adigu aad leedahay marka yaa imaanaysa marka waxaa weeye waxaan aan idinka doonayaa hawshaan bilaabatay inaysan joogsan oo aad gacan siisaan oo xildhibaanadiinna iyo ummadda hawshaan shaqada ku leh oo maxaanku idhaahdaa gacanta kula jirta inaad mar walbaba aad la macaamishaan la hadashaan hadda waxaa ugu dambaysay oo aan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto shirkii garowe aan hadda uga nimid 2 casho ka hor kuma dheeraanayo shirkaasi wuxuu ku soo dhammaaday runtii wax wanaagsan lama rabo wax daran in la sheego ummadda soomaaliyed waa in loo sheego wax wanaagsan waxa wanaagsanna waxay ahayd in madaxda qaranka isu timaado inay tashato inay wada hadasho inay iscalool xaarato haddii ay jirto cabasho in laisu sheego annagu waxa aan soo jeedinay in shirkaasi looga hadlo arrimaha amniga bacdamaa amniga uu noo yahay muhiimadda koowaad ee dowlad goboleedyada madaxdoodana ay qayb ka yihiin national security council arrintaasi waa nalagu diiday waxaa la yidhi waxaa laga hadlayaa marka hore siyaasadda laga heshiiyo ma xuma siyaasadda in laga heshiiyo macnaheedu waxay tahay waa dood furan iyadoo ay saas tahay dood furan umaynan daynin waxaan qaadanay mawduucyo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo markii aan meeshii isugu nimid oo la yidhi waxaa laga hadlayaa siyaasadda guud ee dalka iyo sidii loo wada shaqayn lahaa waa arrin fiican wey waa la iscaloo xartay waa la wada hadlay qof walba fakarkiisu maaragtay keenay waa kala qaadanay fakradii prime ministerku wuxuu keenay qorshihii iyo wixii loo baahnaa in laga hadlo wuxuu keenay dhowr shuruuc hindisa sharciyeedyo loo baahan yahay inaan kala tashan iyaga oo go-aan wadaneed laga gaaro waxay ku bilaabeen waxaa loo baahan yahay madal iyo forum ayaa loo baahan yahay ma xuma in la wada tashado laakiin forumku muxuu ku dhisan yahay mi structure ayuu leeyahay hadduu structure leeyahay waa inuu sharci leeyahay maxaa yeele structure hadduu leeyahay waa inuu guddoomiye leeyahay waa inuu secretary leeyahay annagoo tix raacayna dastuurka qodobkiisa 52 oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taalo golo in la sameeyo kuma ay jirto marka waxaan ku talinay in mar walba la isu yimaado annagoo wada tashanayna laakiin aan la samaynin madal maxaa yeelay madal waa la soo arkay hadday wanaagsanayd iyo haddaysan wanaagsanayn labadaba arrintaasi waa nagu yar adkaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka waxay qabaan walaalahay waxay qabaan in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo hadda doorashadan waxaa looga hadlay baydhabo oo si fiican looga munaaqashooday kulligeenna aan wada siixnay modelkii electionkaas uu noqon lahaa wixii technicality ahna waxay u taallaa golaha shacabka u taallaa golaha shacabkana iyaguna waxay ku leeyihiin dowlad goboleedyadu dad matalaya wixii loo baahan yahay in la bedelo waxaanu ku niri
halkaas ha laga saxo annagu haddii aan keennay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ummadda soomaaliyeedna aan awooddoodii aan gacantooda ku soo celinayno wixii hadda ka dambeeya waxaa iska leh sharciyeynteeda golaha shacabkaa iska leh idinku bacdamaa aad ku leedihiin wakiilo u soo sheega wakiiladiinna sida ay wax idinla tahay la wadaaga arrintaasna xoogaa way nagu yara adkaatay waxaan u gudubnay arrin kale oo ka jirta galmudug arrinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waa nagu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay annaga ujeedadeena waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah haddii ladin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin waqti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go-aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi process la galo election saas looga gudbo walaalayaal walaalayaal waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan ma aha waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti uu weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha saas darteed ma aha wax qof gaar ah loogu dan leeyahay laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dowladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalinna ku darsan hadday tahay dowlad goboleed hal maalin inaysan ku darsan qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado waktiga saxa oo election ka jira uu isku diyaariyo marka ummaddana kalsooni dhexdooda laga abuuro waxaan idiin sheegaynaa waan idiin caddaynaynaa annagu mar walba diyaar waxaan u nahay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda soomaaliyeed ma ka shaqeynayno dan gaara oo dalkaani dhibaato badan yuu soo geystay muddo dheer yuu soo ragaadiyey ummadda soomaaliyeed danu ma aha haddii madaxdu ay ka shaqayso dan gaara saas darteed waxaan u baahannahay kalsoonidiinna waxaan u baahannahay taageeradiinna waxaana ku heli karnaa taageeradiinna in aan wax walba idin caddeenno ama ha qaraaraato ama yaysan qaraaraan laakiin wax walba la caddeeyo wax walba siday yihiin loo caddeeyo dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan idin leeyahay hambalyo caawa waxaa weeye habeen taariikhi ah oo aan xuseenno oo ilaahay halkan isugu keenay inaan noolaano 76 sano ka bacdi dadkeeni wanaagsanaa oo dalkan soo istaajiyey oo dhiigoodii u soo huray oo maalkooda u soo huray oo u soo dhibtooday caawa inaan kulligeen wada xuseenno aan ognahay qof walba oo wanaagsan oo soomaaliyeedna oo waddankan contribution u geystana saas ayaa loo xusayaa insha allah dulay
dhalinyaro mustaqbalkiina gacantiina uu idinkugu jiraa mustaqbalkiina idinkaas ka leh annagu waxaan nahay keliya inaan idin tusno jidka saxa ah jidka wanaagsan inaan idin tusno labay noqonaysaa oo aad kala dooranaysaan inaad qaadaan ama wada qaadno jidkii 13 dhalinyaro ay Soomaaliya xorriyadeeda ku keeneen oo ahayd ummadda Soomaaliyeed in la isku hayo ummadda Soomaaliyeed in la walaaleeyo oo marna aydan u qaybsamin qabiil wax alla wixina kala qaybinayna inaan iska fogeeno ummadana aan wacyigooda kor u qaadno oo aan ka tagno wax alla wixii qabyaalada oo sharafkeena iyo sumcadeena dalkan hoos u dhigaya taasi waa hal dhinaca kale waxa weeye aad qaadanaysaan فكرك كلا وحويه إن أتقاطعان وحي سوجرين كأها ودل كان لو كدغاي oo umada naga reebay oo adduunka oo dhan inoo la yaabayeen annagoo wax walba wadaagna dhul fiican Ilaahayna siiyay labadaas yaad haystaan choices inaad kala doorataan inaad Soomaalnimo aadaan wadaniyada la aado iyo in laga shaqeeyo qabyaalad danaysi iyo shisheeye kalkaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh